ma ahan laba isqabta oo alle isku baneeyay balse wax waliba ka raadinaya helista magac iyo lacag waxay ku wada heshiiyeen sameynta ereyga ay Soomaalidu ay u fahamtay sida qaldan ee loo yaqaan prank oo Soomaali ahaan loo yaqaan gaadmo haddaba daawade ila fiiri sida ay u sameynayaan muuqaalkan aan ka turjumayn diin iyo dhaqanba waxay ku wada qanacsan yihiin kuna faraxsan yihiin in ay sameeyeen muuqaal la sameeyo midka ugu wanaagsanaa oo ay ku heli karaan daawadayaal ama views haddaba maxay diinta islaamka ka qabtaa sameynta dhaqan xumada maxaa ka dhalan kara haddii ay sidaan ku sii socoto arintan bal ila daabo Sheekh Cabdulxay iyo sida uu kaga hadlayo arimahani wax yar oo fursad hadii la helo waxa u malaysaa dadkani in oo dhibkii la soo marayba iyo dhibaatadii dambigu uu keenay inayna xusuusnayn markaas asi waxa loo dhaqmaayaa sida midna laga arko ama telefishinada ama banaanada waxa naga iska khaldamaya dhaqamada ummadahu inay kala duwan yihiin qofka muslimka dhaqankiisu uu ka duwan yahay qofka muslimka ahayn ka muslimka ahayn waxyaabaha isaga caadi u ah oo midna dhalinyaradood iyo waxyaabaha ku saabsan oo kale yaani ay hawadooda raaceen oo say rabaan ay u dhaqmaayaan oo day rabaan jidka isku qabsanayaan oo ay gacmaha isjiidayaan oo isku dhunkanayaan oo day rabaan si rabaan isku sameynayaan hadaba ay isxoogaynin oo is ogol yihiin baa wax dhiba loo arkeen culture saa u samaysan inagu kaamilin inagu umadan waa ummad muhaafid ah waa ummad diin leh waa ummad dhaqan leh wixii noocaas oo kala qariib ayuu inagu yahay marka hadii la soo galay wax qariib inagu ah dadku waa inay arintaasi yaani raayul caamku waa inuu diido arintaas ayada ficlan dareen uu jiraa oo hadda mesela magaalada Muqdisho meelaha qaarkood waxa laga sheegayaa yaani dhalinyaro si aan shuxuma ah oo asluubta wanaagsan ee dhaqankeena iyo diinteena aan u dhaqmaynin Cabdullaahi Colaad waa gabyay Soomaaliyeed wax uuna gabay ku cabiraya dhibta ay leedahay sameynta dhaqan xumada qaaradeena ma oo magalaan qareenkeen kuwii hore qisaasmiyo qoomaluud walaalkood ayay qolo wadaagaan qabka kaleena waa been oo may helin quluub waxan tugu qulun ka buuxiyo qowbay ku daateen gobol qaad u xidhay qayb kalena waxay tahay hablihii qurxoona qaaliga ahaan jiray qaadan jiray xijaabkana qaar halaabay badan oo qarqarada u kala diray qaabkii aan lahayn iyo hidadoodii wada qubay qaawanaanta door bidow cib kama qasoobaan xubnihii la qarin jiray iyo hilba aad u qaaliya qabowga u dhigayo sida geel haraad qaba ku qamaama meelahan hadii aan qiyaasana ku qamaaro sharafkii cidlay qor u tuurteen in la qaatadaayo uu ku qaday gayaankood qaal Allah sidoo yiri kitaabkeena lagu garay hadaana istabaqaban suurka qeyladiisa iyo markay dhacaan qiyaamuhu sanad meel qotomayo asbaqarad u taagnaa qabri mawlac laga dhigay qudbu waliba uu dumo qamdareer laga dhigo saacad wala intuu dhaco dadku kala qaloodaan laba qoro u kala baxo dibnahay qaninaan iyo qoomamo ugu dambaysa haddaba goor dhow la soco warbixintan oo dhameystiran